kusoo dhawaada cashar cusub. Casharkeennii hore waxaynu ku soo qaadanay definition of derivatives, qaanuunka qeexaya derivatives inuu kan yahay. Waxay kaloona baranay inay derivatives tahay slope of the function ama isbedelka functionka. Waxay kaloo baranay in calaamadda tan oo lagu dhawaaqo prime ay tahay calaamadda derivative-ka. Marka videoga kan waxaynu ka bixinaynaa example sida loo isticmaalo definition of derivatives, sida qaanuunkan loo isticmaalo waxaynu ka bixinaynaa example. haddaynu ku bilowno example-keena koowaad kasoo qaad haddaynu haysano example haddaynu haysano f of x equals x square. Yani waxaa layna siiyey functionkan waxaa laynagu yidhi find f prime of x, keen derivative-kii ama slope functionka. Okay, marka koowaad waxaynu ognahay inuu qaanuunkeeni saan yahay. So marka koowaad waxaynu keenaynaa f of x plus h. halkan qaanuunku waxaa weeye saa weeye qaanuunku. Okay, marka waxaynu keenaynaa marka koowaad f of x plus h. So marka f of x plus h waxay inoo noqonaysaa yani x tiba waxaan ku bedelaynaa x plus h waxay inoo noqonaysaa x plus h square. marka waxaynu baranay qoyska marka la furaayo inuu noqonayo tan koowaad oo la square gareeyay, kadibna x oo lagu dhiftay h oo lagu dhiftay 2, marka waxay noqonaysaa 2xh, kadibna tan labaad oo la square gareeyay oo ah h square, kadibna laga jaro f of x. f of x waa tan waa haysanaa. marka qaanuunkeena wuxuu noqonayaa markaan qaanuun gashano waxay noqonaysaa limit as h goes to 0. halkan maxay noqonaysaa f of x plus h. f of x plus h waa tan, marka waxay noqonaysaa x square plus 2xh plus h square oo laga jaro f of x. f of x na waa tan soconaysaa laga jaro x square oo loo qeybiyo h. marka halkan waxayna karnaa inay tahay x square oo laga jaro x square, marka labaatan way isla baxayaan. kor marka maxay noo kusoo haray 2xh plus h square oo loo qeybiyey h. marka haddaan sii wato f prime of x waxay noqonaysaa limit as h goes to 0. marka halkan h-ta ayaa waxaan u qaadanayaa common. h-ta haddaa common u qaata halkan maxay kusoo haraya 2x, kadibna halkan haddaa h u qayb maxay soo haraya hal h kaliya ay soo haraysa, kadibna halkan oo loo qaybiyey h. marka h iyo h way isla baxayaan. marka waxay soo baxay inay f prime tahay. f prime of x waxay soo baxay inay tahay limit as h goes to 0 2x plus h. h-na waxaa ogahay inay 0 aadayso, marka h 0 aadaysaa. marka f prime of x waxay soo baxay inay tahay 2x, yani inay derivative-kii functionka uu kan yahay ay soo baxaya. videogeena hore waxaynu xisaabinay markaynu haysano f of x equals x square at x equals marka x ay 2 tahay waxaynu keenay in f prime of 2 inay tahay 4 bay videogeena hore keenay. marka hadda haddaynu rabno inuu isticmaaleyna qaacidadeenu hadda keenay, haddaynu rabno inay keeno f prime of 2 hadda halka maxay noqonaysaa in waxay haysanaa 2 x ta waxay ku bedelaynaa 2, marka waxay noqonaysaa 2 oo lagu dhiftay 2 waxay soo baxaysaa 4. marka qaacidatan ama derivative-kii wuxuu siinayaa slope-ka ama isbedelka functionka point kasta oo ku taala. kasoo qaad haddaynu point kala qaadano waxaan rabnaa inayba keeno f prime of 5 bay rabnaa inay keeno. maxay noqonaysaa marka 2 shanta wax ku bedelaya x ta wax ku bedelaya 5, marka labaad marka soo dhifto waxaa weeye 10. marka isbedelka 0.5 had 0.5 functionkeeni saan aha. markaynu kasoo qaado halkan oo kale hadday 5 tahay isbedelkeedii pointiga kan isbedelkeedii tangent line ama isbedelkeedii wuxuu noqonayaa 10. marka qaanuunka wuxuu siinayaa isbedelka point kasta. Okay, marka aynu samayno example kale. kasoo qaad haddaynu haysano f of x equals 2x plus 1. kan waxaa ognahay horta marka hore find f prime of x, yani keen isbedelkii functionka. markayna waxaynu ognahay kan inuu yahay line toosan oo y-da wax ku jira 1, slope-kiisana wuxuu yahay 2. marka waxaynu ognahay inuu slope-kii yahay 2. marka waxay isku dayeen hadda inaynu qaadayno qaanuunka isticmaalno labadaas mayno soo baxaysaa. Okay, marka qaanuunkeena waxaa f prime of x waxa weeye limit as h goes to 0 ay h 0 aadayso
f of x plus h minus f of x oo loo qaybiyey h. Yani sidan waxaa qaanuunkeen. Okay, marka hadda waxaan keenayaa f of x plus h, f of x plus h haddaan keeno f x plus h, x plus h baa waxaan ku bedelanayaa qaanuunka halkan. Marka labo x maxay noqonaysaa x plus h oo loo geeyey hal. Labatana gudaha gelinaya marka waxay soo baxaya 2x 2h plus 2h oo loo geeyey hal. Yani kan waxay soo baxaya inuu yahay f of x plus h. f of x teedina waaba tanba waaba haystaa. Marka haddaan qaanuunka gashto f prime of x waxay ii noqonaysaa limit as h goes to 0 f of x plus h oo ah 2x plus 2h plus 1 oo laga jaray f of x. f of x na maxay ahayd 2x plus 1 okay oo loo qaybiyey h. marka negative kan ayaan gudaha gelinaya. maxay soo baxaya marka f prime of x waxay soo baxaya inay tahay limit as h goes to 0 2x plus 2h plus 1 minus 2x minus kala marka gudaha geli minus 1 oo loo qaybiyey h. marka halkan waxaan arki karaa inay tahay 2x oo laga jaray 2x. marka this 2x and this 2x isla baxayaan. halkan maxaa hayaa hal laga jaray hal. marka halkan waa eber iyadana waxay soo baxay marka kor 2h oo loo qaybiyey h. marka waxay soo baxay 2h oo loo qaybiyey h. marka h tan iyo h tan way isla baxayaan. waxay soo baxayaan labo. marka f prime of x waxay soo baxayaan in derivative-ki ay tahay labo. inaguna waxayba ogeynba inuu isbedelku laba yahay. ku tusaya inay derivative tahay slope of the function ama isbedelka functionka. okay, aynu samayno example kale. kasoo qaad hadaynu haysano f of x equals x square minus 8x plus 9 oo layna ku dhaho find f prime of x. yani derivative-ka keen. okay, adigu example-kan isku day kadibna video kusoo laabo. okay, marka qaanuunkeena waxaan ognahay inuu yahay f prime of x waxaan ognahay inay tahay limit as h goes to 0 h ay 0 aadayso f of x plus h minus f of x oo loo qaybiyey h. marka waad maxaan samaynaya f of x plus h baa xisaabinaya. marka f of x plus h maxay noqonaysaa halkan baa gashanaya aan x plus h baa x kasta oo functionka ku jirta. yani labatan x waxaan ku bedelanaya x plus h. maxay noqonaysaa x plus h square minus 8 kadibna x waxaan ku bedelanaya x plus h plus 9. okay, marka halkan waxay noqonaysaa f of x plus h waxay noqonaysaa waxaan furayaa bracketka. marka tan kuwaad la square gareeyey x square plus 2xh plus h square markaan qoyska furo saasuu noqonaya. kadibna 8 kan ayaa waxaan gelinaya gudaha. marka minus 8 waxaan ku dhufanaya x maxay soo baxaya minus 8x kadibna minus 8h oo loo geeyey 9. okay, hadeerta marka maxaa haysta f of x plus h minus f of x. marka f of x na waata ina xisaabiya laygama rabo. marka haddaan qaanuunka gashto maxay noqonaysaa f prime of x waxay noqonaysaa limit as h goes to 0 f of x plus h waatan waxay noqonaysaa x square plus 2xh plus h square minus 8x minus 8h oo loo geeyey 9. kadibna tan maxaa ka jaraya f of x na maxay ahayd x square minus 8x plus 9. marka waxay tahay x square minus 8x plus 9 oo loo qaybiyey kulligood h. okay, marka minuska kan ayaa waxaan gelinaya gudaha. waxay soo baxaya f prime of x maxay soo baxaya limit as h goes to 0. tan sideeda usoo koobigaraysanaya maadaama aysan isbedelayn. waxay noqonaysaa x square plus 2xh plus h square minus 8x minus 8h plus 9. okay, minuska waxaan gelinaya gudaha. marka waxay soo baxaya minus x square
hadina minus 8x iyo minus maxay soo baxay plus 8x minus iyo plus marka minus 9 intaas oo dhan oo loo qaybiyay h marka hadda halkan maxaa arki karaa halkan waxaa haystaa x square halkan minus x square marka 20 isla cancelmayaan halkan maxaa haystaa minus 8x halkan plus 8x marka 20 isla baxayaan halkan maxaa haystaa plus 9 iyo minus 9 9 jir 9 waa eber marka kor maxay ku soo haray kan iyo labada tan marka waxay noqonaysaa f prime of x waxay noqonaysaa f prime of x waxay noqonaysaa limit as h goes to 0 kor maxay ku soo haray 2xh plus h square minus 8h loo qaybiyay h marka term kasta wuxuu haystaa h buu leeyahay marka h taa waxuu qaadanaya inay common tahay h haddaan common u qaato halkan h u qaybiyo maxay soo haray 2x halkan h markaan u qaybiyo maxay soo haray hal h halkan minus 8 iyadoo dhan oo loo qaybiyay h marka h iyo h oo soo baxayaan maxay soo haraya inta tan sare marka f prime of x waxay noqonaysaa limit as h goes to 0 2x plus h minus 8 okay marka h maxaa weeye h waxaa aadisa 0 marka h waxaa aadisa 0 marka maxay soo haray f prime of x maxay soo baxay f prime of x derivative waxay noqonaysaa 2x minus 8 marka derivative kan waxay ku siinaysaa functionka slopekiisa ama isbedelkiisa ama derivativekiisa any point okay aynu sameeyno example kale hadaynu haysano soo qaad f of x equals halin c 1 over x halin ku yiri 1 over x halin ku yiri find f prime of x yani derivative-ki kan example kan sidoo kale isku day kadibna video ku soo laabo okay marka qaanunkayga muxuu ahaa f prime of x waxay noqonaysaa limit as h goes to 0 f of x plus h minus f of x oo loo qaybiyay h marka koowaad yani halkan f of x plus h x tan kaliya ayaan ku bedelanaya x plus h marka caadi la tuuba u qoran karaa maxay soo baxaysaa marka f prime of x waxay soo baxaya limit as h goes to 0 x plus h by x ku bedelanaya maxay soo baxaya marka 1 over x plus h halkan f of x sidaan buu qoranaya laga jaray 1 over x oo loo qaybiyay h marka waxaan ka takhalusayaa hooseyaashaan ka takhalusayaa marka kor maxaan ku dhufanayaa kor waxaan ku dhufanayaa saa uga takhaluso x plus h oo lagu dhuftay x oo loo qaybiyay isla iyada x plus h oo lagu dhuftay x maadaama tan marka la isu qaybiyo waa 1 sida hal inaa ku dhufto kale weeye marka waxba isma bedelayaan okay marka tan koowaad waxaan ku dhufanayaa kan soo marka halka waxaan haysanaa ka soo qaado waxaan haysanaa 1 plus h 1 over x plus h sax waxaan ku dhufanaynaa x plus h iyo x marka labaatan isku dhufto maxaa dhacaya tan iyo tan way isla baxayaan waxay soo haraya kaliya x marka tan ku dhufto maxay soo haraya f prime of x waxay noqonaysaa limit as h goes to 0 labaatan marka isku dhufto waxay soo haraya x kaliya labaatan marka isku dhufto x tan waxay la baxaysaa x ta kan kaliya ay soo haraya marka waxay soo haraya minus x plus h hoosna waxay soo baxay h oo lagu dhuftay x plus h iyo x okay marka hadda minus kan waxaan gelinayaa gudaha f prime of x waxay soo baxaya limit as h goes to 0 x minus h loo qaybiyay h x plus h iyo x okay marka halkan maxaynu arki karnaa inay tahay x laga jara x soo 20 waa eber halkan maxay soo haray minus h oo kor iyo h tan marka h tan iyo h tan way soo baxayaan kor maxay ku soo haray kaliya minus 1 kor waxay ku soo haray minus 1 marka f prime maxay noqonaysaa f prime of x waxay noqonaysaa limit as h goes to 0 kor maxay ku soo haray minus 1 xagana x plus h iyo x marka hadda x waxaan gelinayaa gudaha x markaan gudaha geliyo
ama h2 waa bogna h2 waa 0 yani h waa 0 halka maxaynu ku saaray marka x lagu dhiftay marka waxaynu noqonaysaa minus 1 over x square yani halkan waa eber marka waxay noqonaysaa tan baan ku dhufanayaa tan iyadana waxaan ku dhufanaa halkan maadaama halkan eber tahay x square ayaa soo baxaya marka derivative-keeni saan noqonaya okay aynu samayno example kale marka haddaynu haysano soo qaad haddaynu haysano f of x equals root x walaynu ku dhaho fine f prime of x can derivative-kii okay adigu marka example-kan video intaa qabato isku day kadibna video kusoo laabo okay marka qaanuunkeenu muxuu ahaa f prime of x maxay ahayd equals limit as h goes to 0 f of x plus h minus f of x oo loo qaybiyey h okay marka f of x plus h maxay noo noqonaysaa rootkii x waxaan ku bedelanayna x plus h maxayna soo baxay root x plus h f of x na waa tan f of x samaan f of x waa root x waa haysana marka haddaan qaanuunka gashto maxay soo baxay f prime of x derivative waxay noqonaysaa limit as h goes to 0 f of x plus h waa root x plus h oo laga jaray f of x oo loo qaybiyey h okay marka waxaan sameynayaa maadaama haysto roots halkan haysto waxaan rabaa inaan ka takhaluso marka saan uga takhaluso waxaan ku dhufanayaa waxa la dhaho conjugate baan ku dhufanayaa oo noqonaya x plus h oo lagu daray root x oo loo qaybiyey x plus h oo lagu daray root x yani kan waxaa la dhahaa conjugate sababta loo dhahan waxaa weeye calaamadda tan ayay ku kala duwan yihiin yani calaamadan kaliya ku kala duwan yihiin haddii halkan aan ku haysan lahaa positive haddaan ku haysan lahaa inta negative baan dhigan lahaa marka calaamadda kaliya ku kala duwan yihiin okay marka derivative-ka muxuu noqonayaa derivative-ka wuxuu noqonayaa f prime of x waxay noqonaysaa f prime of x waxay noqonayaa limit as h goes to 0 h 0 aadayso kor maxay noqonaysaa root x plus h oo laga jaray root x oo lagu dhiftay root x plus h plus root x hoosna maxay soo baxay h oo lagu dhiftay root x plus h oo lagu daray root x yani tan hadda aanan laba tan aan ku dhiftay kan aan ku dhiftay kan waa hal bay ka dhigantay maadaama sareeya iyo hooseeya marka la isku qaybiyo hal baa soo baxaya marka intaan guda gelin markaynu haysano ka soo qaad markaynu haysano root 5 oo lagu dhifto root 5 maxay noo soo baxaya maadaama la isku dhifto labada gudaha ku jira kan waxay noo soo baxaya 5 sababta ka dambeysana maxaa weeye labada maxay noqonaysaa yani kan waxay noqonaysaa 5 iyo 5 marka ku dhifano 25 root 25 na waa 5 marka horta qaanuunka xasuuso هذا اسكت ترتيبه اوكي marka kan maxay soo baxay f prime of x maxay soo baxay equals limit as h goes to 0 marka kan baan labada ku dhufanaya marka kan markaan kan ku dhufto maadaama isku mid yihiin maxay soo baxay x plus h baa soo haray okay marka kan ku dhuftana maxay soo baxay waa plus marka waxaan noqdaa plus root x oo lagu dhuftay root x plus h okay kadibna markaan kan ku dhufto maxay soo baxaya minus root x oo lagu dhuftay root x plus h okay markaan minus root x and plus root x ku dhuftana maxay soo baxaya minus x kaliya iga soo haraysa halka hoosna maxay soo baxaya hoos weli sideedii weeye marka x plus h oo lagu daray root x marka maxaa arki karaa in labada tan ay isku mid yihiin calaamadda kale kala duwan yihiin marka intaan laga jaro waa 0 okay marka kor maxay ku soo baxay kor waxa ay soo haray f prime of x waxay noqonaysaa limit as h goes to 0 x plus h halkan ay soo haray x plus h oo laga jaray x tan halkan koona ay soo hartay oo laga jaray x oo loo qaybiyay h root x plus h oo loo geeyay
root x. Okay, marka halkan maxaa haysanaa x laga jaray x marka labaatan isla baxayaan. Halkan kor maxay ugu soo haray marka h iyo h tan oo isla baxayaan. Marka kale waxay ugu soo haray hal kaliya ay ugu soo haray. Marka f prime of x maxay noqonaysaa? F prime of x waxay noqonaysaa limit as h goes to 0. Kor maxaa nir waxay ugu soo haray hal kaliya ay ugu soo haray. Halkan maxay noqonaysaa marka root x plus h plus root x. Marka h waxaan ognahay in h ay 0 aadayso marka h tan 0 aan ku bedelinayna. Marka maxay soo haraya 1 loo qaybiyay root x oo lagu daray root x. Marka halkan waa laba root x. Marka maxay soo baxay f prime maxay soo baxay f prime of x waxay soo baxaya inay tahay 1/2 root x. Marka jawaabteeni waa tan. Okay, marka haddeerta waxaan ku siinayaa su'aal homework-aan adigu ka shaqayn karto. adiguna ka shaqaysaa haddii lagu siiyo f of x equals square root 2x plus 1. haddii tan lagu siiyo lagu dhaho find f prime of x adigu tan ka shaqay jawaabteedina keen. marka jawaabteedii tan waxay noqonaysaa yani answerka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa answerka wuxuu noqonayaa 1/root 2x plus 1. يعني steps aynu tan ka horeysay yani step aynu su'aasha tan isticmaalnay baad isticmaalaysaa. fiirina answerki sax inuu ku soo baxdo waa lagaaga baahan yahay. marka fiidiyoda soo socda waxaanu geli doonaa differentiation rules. yani waxaanu geli doonaa product rule, quotient rule iyo chain rule iyo kuwaas baynu geli doonaa iyo power rule iyo sida differentiationka looga shaqeeyo adoo isticmaalaya power differentiation rules. yani rules baynu ku xiga rules of differentiation baynu ku xiga.